runtii dowladda Soomaaliya oo magacii dadka Soomaaliyeed iyadu qaadatay way jiran tahay hadda 30 sano bugtaa maamulkii dowladeed oo hore oo dadka Soomaaliyeed ee inta kala degan ama Kenya degan ama Ethiopia degan ama Djibouti degan meesha qablada u ah oo ay ka sugu jireen badbaadada waxay ahaan jirtay ee dowladda Soomaaliya hadda way burbursan tahay waxaan qabaa meesha kaliya oo Soomaalida regionkaas ku dhaqan dib looga yegleeli karo laga toosin karo waa dalka Kenya saasleeyahay maxaa yeelay mas'uuliyadda waxaa hadba qaado qofka is saara marka siyaasiyiinta reer Kenya runtii mas'uuliyad bay is saareen waxay booqdaan ama tagaan ama u socdaan arrimaha Soomaaliya si u hagaagi lahayd waan uga mahad celinaynaa waana ku gacan siinaynaa dadaalkaas ay wadaan